بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينين مروين بكسر لواذا ورarkii caalamka inaga soo gaaray halkan waa idaacada ama jaranka soo dalxiis soo dhawaada mudane murooyinba qaybo kamid ah dowladda Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiro fara badan oo ku sugan degmada Caargaabo xarunta gobolka Sanaag ayaa wali waxay ku guda jiraan qarameynta ciidamadii madaniga ahaa oo lagu sumadayo inay ka mid noqdaan ciidamada qaranka Soomaaliya saas la arjigeed khudbado fara badan ay jeediyeen madaxweyne ku-xigeenka wasiirka gaashaandhigga maayir ku-xigeenka iyo barasaabka ayaa hadallo aad u fara badan uga jeediyay xafladii soo wareejinta hubka. wasiirka gaashaandhigga ayaa aad ugu nuxnuxsaday oo yiri ciidanku maanta ayuu awood intii ka badan u leeyahay amarkii laga soo qaadan jiray Hargeysa ciidamada laga soo amri jirayna maanta amarkaas wuxuu ka baxayaa degmada Caargaabo xarunta gobolka Sanaag ayaa ciidamada laga abrayaa jiidana waa la sii adkeenayaa ciidamaduna waa sii badanayaan mooyaane wax ka naaqusaya male ciidamada tan la qalabeeyna waxay joogayaan Sanaag ay joogayaan waxay joogayaan halka ay hadda joogaan ay ku qaramaysan yihiin oo ay joogayaan awood ay yeeshaan mooyaane wax ka dhacaya oo ka naqusaya ma jiraan isagoo hadalkiisa sii wata dhammaantood waa tan la dhigayso fadlan marka dhigistaan laagta iyo sheerkana noogu dara waxaan Caargaabo u dooranay Sanaag gobolka intuu leeyahay waa ku celcelinayaa mar kastaba Soomaaliland baan jirayn haddaan Sanaag nabad ahayn maalin kale oo maalintii labaad aan filayo inaynu samaynayno qaramayntii ciidamada madaniga ahaa ee degmada Caargaabo iyo gobolka Sanaag waa maalin kale oo mudan inaynu aad ugu mahad celinno intii ka soo shaqaysay arrinta tan oo aan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro sababtoo ah waa arrin usaysan nolosheenna in amnigeennu sugmo oo aynu si nabadgelyo ugu wada noolaanno degmada Caargaabo iyo gobolka Sanaag halkan waxaan ma dhadhowa maalin baa ku sii xigta waxaan arki jirnay oo meelaha ka daawo jirnay madaxweyne ku-xigeenkii ama madaxweynihii oo u soo xidhay dufcad Hiblaayo tababarkii maantana waa dufcaddii labaad ee ciidanka madaniga ku sugnaa degmada Caargaabo maalmaha ku xigana insha Allah tii saddexaad iyo tii afraad iyo tii shanaad iyo ilaa aynu ka gaadhayno dhammaan inaan ciidanka madaniga aynu ku wada qaramayno qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka madaniga runtii mudane madaxweyne ciidanka madaniga gobol Sanaag ku sugnaa waa ciidan ku suntan akhlaaq iyo dhaqan wanaag iyo juhdi ay geliyeen qaranka dantii ay u aasaasmeen bay ku koobnaayeen waxay la mid ahaayeen ciidanka qaranka hadday awaamiir tahay iyo hadday tallaabo qaad tahayba may ahayn ciidan madani oo ka horeeya waan u mahadnaqaynaa maanta markii abaalgudkoodii yimina sida ay u fahmeen inay dantan iyo karaamada meeshan ka dhacday ama Caargaabo ka dhacday inay tahay wixii ay xaq iyo xuquuq ku heli lahaayeen taa inay nala fahmeenna aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa